kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Anisa Daacad waxa halkan idinku soo gudbinaynaa xogii u dambeeyay dagaalka ka soconaya bariga dhexe Israa'iil oo soo bandhigtay qasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkaasi Iiraan oo mar kale fariino digniin ah hawada marsiisay iyadoo wacad ku martay in duqeymaheeda ay si laba jibaari doonto isla markaana ay bartilmaameeysan doonto saldhigyada muhiimka u ah Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna waxa uu wacad ku maray in dagaalka uu joogsan doono balse Iiraan ayaa ka hortimid hadalkaasi oo waxay ku tilmaantay waxba kama jiraan iyadoo sheegtay in dagaalkaasi dhamaadkiisa uusan wax shaqo ku lahayn Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil balse Iiraan ahaan ay iyagu gacanta ugu jiro ee dhamaadka dagaalkaasi xogay u dambeeyay ayaa halkan idinku soo gudbin doona waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona wadamo kamid ah khaliijka carabta oo sheegay inay la kulmeen weeraro gantaale sidoo kale weeraro ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo ka soo gaaray jab culus xogii u dambeeyay ayaa halkan idinku soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furosay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga hadii subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo saar si oo gaar asxaab badan wad ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabnay Israa'iil ayaa markan soo bandhigtay qasaarihii ugu cuslaa ee soo gaaray tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka soconaya bariga dhexe oo galay maalinkiisii 12aad dawladda Israa'iil ayaa sheegtay in 24 saacadood ee ugu dambeeyay ay 191 qof ay kaga dhaawacmeen dagaalka ka socda bariga dhexe halka hanti intaasi ka badanna ay ku burburtay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan Israa'iil ayaa waxa duqeymo culus ka geystay Iiraan iyadoona ay u adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sidoo kale gantaalada nooca plastikada iyadoo sidoo kale Iiraan ay ku hanjaweyso in gantaaladii xilligan ay isticmaashay kuwa ka daran ay markaan ay isticmaali doonto waxaana ay sheegtay in Israa'iil in dadku ka dhaawacmay yaalaan isbitaalada waxaana sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Israa'iil ay sheegtay in muddadii uu dagaalku socday ay dad tiradooda gaaraya 2339 qof oo ay ku jiraan isbitaalada kuwaas oo qaarkood geeriyooday halka kuwa kalena ay qabaan dhaawacyo culculus waxaana sidoo kale ay ku warantay in dhammaan dadkaasi ay waxyeelo ka soo gaartay duqeymihii Iiraan ay la bartilmaameysatay Israa'iil kuwaas oo adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale gantaalada nooca plastikada iyadoo Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay daandaansiga dagaalka markii hore ay ku bilaabeen Iiraan balse xilligan uu baxayo calacalkoodii isla markaana jab culus ay gaarsiinayso Iiraan inkastoo Israa'iil iyo sidoo kale Mareykankaba aysan joojinin ee duqeymaha ay la bartilmaameysanayaan Iiraan dhankeedana waxay laba jibaaraysaa duqeymaha iyadoona markaan ay sheegtay inay la soo bixi doonto hub ka daran kuwa hadda ay isticmaashay ee plastikada kuwaas ay ku sheegtay in xawaarahooda uu si aad ah oo u dheereeyo isla markaana goobaha bartilmaameedka si dhaqso ay ugu fulin karaan markaana hadii aan aadno wadamo kamid ah khaliijka carabta ayaa waxay sheegeen in xilligan ay la kulmayaan duqeymo culus oo ka imaanaya dhanka iyo Iiraan wadamada fariimaha kala duwan ee ka soo baxaya ayaa kamid ah Qatar, Bahrain, Kuwait iyo Imaaraadka Carabta waxaana ay sheegeen inay la kulmayaan weeraro gantaala ay sidoo kale diyaarado aan duuliyaha lahayn kuwaas oo kaga imaanaya dhanka iyo Iiraan kuwaas oo ku sheegeen inuu yahay bartilmaameedyo lala bartilmaameysanayo qaybo kamid ah wadamadooda wasaaradda difaaca ee Qatar ayaa shaacisay in dalkaasi lagu weeraray 17 gantaal oo plastika ah iyo sidoo kale 6 diyaaradood oo kuwa droonka aan duuliyaha lahayn kuwaas oo la sheegay in laga soo tuuray dhinaca ee Iiraan iyadoona Iiraanba horey u sheegtay in bartilmaameed gaar ah ay u yihiin qaar kamid ah wadamada khaliijka carabta kuwaas oo ku yaala saldhigyada militariga ee Mareykanka uu ku leeyahay halkaasi iyadoona ujeedkeedu ku tilmaantay in saldhigyadaasi gabi ahaanba ay burburin doonto iyadoona Iiraanba horey ugu guuleysatay qaybo kamid ah saldhigyadaasi inay dhulka ay ku darto Iiraan ayaa goobaha ay sida bartilmaameedka ugu fulinayso duqeymaheeda waxa ay yihiin Imaaraadka Carabta halkaas oo ku sheegtay in saldhig muhiim u ah Mareykanka uu ku yaalo halkaasi sidaas darteedna ee bartilmaameedka halkaasi ee loogu badinayo
duqeymaha ay ka geysatay Israa'iil iyo sidoo kale kuwa ay ka fulisay isku tagga Imaaraadka Carabta marka la isbarbardhigo waxaa lagu sheegay inay aad ay u badan yihiin kuwa Imaaraadka Carabta iyadoona lagu sheegay sababta ee saldhigga ugu muhiimsan ee Mareykanka uu ku leeyahay halkaasi. dhanka kale Bahrain ayaa sheegtay in weerar gantaal uu sababay geerida haweeney 29 sano jir ah sidoo kale dhaawacay 8 qof kadib markii gantaal uu ku dhacay dhismo ku yaala caasimadda Manama. wasaaradda arrimaha gudaha ee Bahrain ayaa sheegtay in weerarkaasi uu ka mid yahay duqeymaha ay fulisay Iran kuwaasi oo u ah bartilmaameed gaar ah waxaana ay sheegeen in Iran markaan ay duqeymaheedii ay si laba jibaarayso qasaaraha culus ee soo gaaraya qaybo ka mid ah wadamada Khaliijka Carabtana uu aad u tiro badanayo. sidoo kale ciidamada difaaca hawada ee Bahrain ayaa sheegay in tan iyo markii uu bilowday weeraradan ay soo rideen 102 gantaal iyo sidoo kale 171 diyaaradood oo nooca droniska aan duuliyaha lahayn kuwaas ay ku sheegeen inay muujinayaan baaxadda weerarka Iran ay ka geysanayso Bahrain. Imaaraadka Carabta ayaa isna carabaabay weerarada droonka ee lagu bartilmaameedsaday qunsuliyadooda ku yaala magaalada Arbil ee dalka Ciraaq. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in 3 droon la soo riday iyadoona mid ka mid ah uu ku dhacay meel u dhow qunsuliyadda. dhinaca Kuwait ciidamadu waxay xaqiijiyeen inay ka hortageen weeraro gantaalo oo droon ah iyadoona difaaca hawada ay ku guuleysteen inay soo ridaan bartilmaameedyada iyadoona wadamada Khaliijka Carabta markaan uu soo yeerayo qeyladaan xoogan oo ku aadan ee dagaalka amaba weerarada ay fulinayso Iran ayaa dhankeeda waxay sheegtay in markaan ay isticmaali doonto gantaalo culus oo badan oo lagu duqeyn doono Israa'iil sidoo kale saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay qaybo ka mid ah wadamada Khaliijka Carabta. dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa waxay sheegtay in waqtigan Iran aanan diyaar u ahayn xabad joojin iyadoona wacd ay ku matay in Iran xilligan ay si laba jibaarayso dagaalka xilligana ay diyaar ay u tahay inay la soo baxdo hubkoodii ee kama dambaysta ay kula dagaalamayso Israa'iil. waxaana ay sheegeen in Iran markaan ay dagaalkeeda u soo weecin doonto dhanka iyo Israa'iil sidoo kale Mareykanka kadib markii saldhigyada ugu muhiimsanaa ee Mareykanka uu ku lahaa wadamada Khaliijka Carabta Iran ay ku guuleysatay inay dhulka ay mariso. wakaaladda wararka Iran ee Faris News ayaa ku warantay in Iran ay u adeegsatay hub gaar ah sidoo kale gantaalo xambaari kara madaxyo qaraxyo oo halkan ah kuwaas oo ku socda xawaaraha 14 Maaj oo ka dhigan socodka ee gantaalada ah in ay 14 jeer ka dheereeyaan kuwa la sheegay inay suurtagal ay noqdaan codka labada qof ee iska soo horjeeda ee isgaaraya in ay ka sii fudud yihiin gantaalada Iran markaan ay isticmaalayso. waxaana sidoo kale lagu sheegay in 24 saac ee la soo dhaafay gudaha dalka Israa'iil saldhigyo ku yaala oo uu leeyahay Mareykanka Israa'iil Iran ay si gaar ah bartilmaameedyo ugu fulisay iyadoona la sheegay in ay u isticmaashay gantaalo cusub oo ka bedelan kuwii hore ay Iran ay isticmaali jirtay. dhinaca kalena markab shidaal oo laga leeyahay Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in Iran ay ku dhufatay gantaal kaasi oo la sheegay in uu marayay marinbiyoodka Hormuz. waxaana jira qasaare kala duwan oo soo gaaray markabkaasi badeecadii saarneed. Iran ayaa waxay ku hanjabtay in marinbiyoodka Hormuz ee markabkii raba in uu maro marka hore uu maro sifada sharciga isla markaana amarka laga soo qaato Iran haddii ay taasi dhici weysana ay bartilmaameedsan doonto markab alaala markabka maraya biyahaasi. dhinaca kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo wareysi siiyay Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in dagaalka marka loo eego Iran uu ku dhow yahay gabaabsi isagoona sheegay in Iran markaan uu ka dhamaaday hubkii ay ku dagaalameysay markaana ay diyaar ay u tahay inay wada hadal ay gasho isla markaana dagaalka la soo afjaro. warkaasi markii uu soo baxay kadib Iran ayaa durba ka jawaabtay oo waxay ku tilmaantay warka ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu yahay mid been abuur isla markaana aan waxba ka jirin. waxayna ku warantay amaba ay sheegtay
in Iiraan aysan marnaba dhag jalaq u sii doonin baaqyada ka soo baxaya Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka, balse ay sheegtay in gabagabada ee dagaalka ka soconaya bariga dhexe go'aankeeda uu leeyahay Iiraan balse Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil aan waxba shaqo ku lahayn. guud ahaan daawadayaal xogii u dambeeyay ee wararka naga soo gaaraya bariga dhexe waa naga inta warkankiisa xiga inta dibka kulmi doono sidaas nabadgelyo. haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeenana fadlan subscribe inoo dhig gambarelkana furo si ay ugu soo gaaraan muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay laakiin oo saar soo gaar asxaab badan waad ku mahadsantahay daawashadaada.